waxaan jecelahay markan khudbadda madaxweynaha dowladda Hirshabelle mudane Maxamed Cabdi Waare Hirshabelle oo aniga iyo meel ii gaara maadaama farta hadda dadku waxay u amaanaan wax qoridda waxyaabahaas meeshan ku farbartay waa buulo burtaaniga marka madaxweynaha dowladda Hirshabelle mudane Maxamed Cabdi Waare ku soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها دولة قانون هاي دمان مدحوينياشا كله بارلمانك iyo labada gole labada heer ee federaalka marti sharafta kale bulshada rayidka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qof walba waxaan ku salaamay magaca iyo mansabka iyo brotokolka oo halkan ku fadhiyo runtii waxaan jeclaan lahaa inaan si niyada oo kalsamiya u bogaadiyo madaxda iyo shacabka galmudug oo ugu horeeyo madaxweyne qorqoor ilaa iyo caawa waa laga sheekayn karaa wanaagga aan halkan ku aragnay laakiin waxa tusaale ay noogu filan tahay oo darsi noogu filan tahay midnimada iyo wanaagga iyo isla shaqaynta iyo isla buuxintu waxay dhali karaan wadan in horumar la gaarsiiyo waxaa ka horeeya hal shay waxaa ka horeeya horta wadanka in loo laxa jecloodo waxaa muuqata oo aan marqaati ka nahay reer galmudug inay u laxa jecloodeen wadankooda oo ay caqli iyo cilmi iyo effort waxay hayeen ay halkaan isugu keeneen hogaaminta madaxweyne qoorqoor iyo personalitiskiisa iyana intaasoo dada iyo intaasoo horumar isku haayeen bogaadin gaar ah ayaan madaxweyne kaaga bogaadinayaa waxa kale oo rabaa inaan soo dhaweeyo saaxiibkay madaxweynaha dowladda Jubbaland Axmed Madoobe oo runtii sidii doorashadiisa ay u dhacday aanan golayaashan maba dhicin laakiin aan ka soo qayb galin asagana waxaan ku leenahay ka soo qayb gal wanaagsan taladaada iyo odaynimadaada waa u baahannahay adigana soo dhawow run ahaantii war badan ma la ii reebin runtii waxaan rabaa inaan 3 qodob kaliya aan dul istaago shirka ujeedadiisa iyo waxa laga filanaayo iyo meesha aan u soconno iyo waxa aan rajaynayno dhammaan waxaa cabiray madaxweynayaashii iga horreeyay qodobka ugu horeeya oo aan rabo inaan dul istaago waa qodobka dastuurka dhammaanteen waxa halkaan aan isugu nimid oo isugu keenay waa dastuurkaanu waa shay ka dhashay colaadii waddankaanu galay kala aanbixii kala irdhowgii isku soo jiijiididiisii qof walba aniga waxaan laga tiro waxaan hala geliyo ilaa dhowr iyo 10 draft ayuu maray wixii laga badi waayay ayaa halkaas lagu qoray dadka u haysta inuu yahay dokumenti iska caadiya waa dhaxalka aan ku wada joogno ilmaheennuna ay ku wada joogi doonaan waxay la mid tahay ayadoo family isla dhashay kulligood intay waalidkooda ay u yimaadaan ay yiraahdaan aabow hooyow walaalkay iga weyn iyo walaalkay iga weyn shaki baan ka qabaa intaad nooshahay wax noo kala qor waxaas aan ku dhaqanno markaad dhimato dastuurku muhiimadaas uu leeyahay waxa ayaamankan batay in dastuurka la duro waxa lagu leeyahay waa qabyo dastuurku qabyo maaha
وترجمات قلدن كلمة إنجليز كدرافت وحاواي إلى لقى أنصحيه أنبو درافتي هاي ما هي سومالي وحي إسليه لهاد ويستري جبوتي لقى صوب بالله سيدا مدحوينياش وشيغان إلى هدو محوها هاي سنة العبد قيديدي تيم كود وحي سومالي إسليه لهاد أيها هالكاس لدو جنايا wax aqliya oo naga maqan oo banaanka naga jira huma jiraan waxa la yiraahdaa wuu iska hor imaana dastuurku ma iska hor imaanayo waxay ku xiran tahay in il naxariis la lagu fiiriyo in niyad waxay u baahan tahay in niyad wanaag lagu fasiro waxay u baahan tahay in il hooyo lagu fiiriyo oo aanan il eedo lagu fiirin dastuurka haddii il hooyo lagu fiiriyo dastuurka wax ka hadlaysano ma jiraan wixii ka dhimanna haddaa hawsheedu socotahay aan iimaansanno gaar ahaan waxyaalaha dastuurka aan ka dhaxlayno waxaa ka mid ah sida loo sheegay systemkan federaalka oo aan haysanno mar kasta oo ay taladu maxoogaa naga warwareerto halka aan ku taagsanaho waa federaalka waa meesha xuquuqda muwaadinku ay ku kaydsan tahay dastuurkaas inaan iimaansanno oon wanaagsanno ayay taladeennu ku jirtaa sida dad badanoo yaqaan ay og yihiin aniga samafalkan ka soo shaqayn jiray dad baan wax u qaybin jirnay dadka marka safka la geliyo haddii safkaas loo hoggaansamo oo qof walba waqtigiisa sugto oo qorraxda iyo dhibaatada iyo qolada safaysa iyo ay u dulqaataan hawshu fudeeday ku soconaysaa laakiin haddii safka mid gooyo oo wuxuuna xaq u lahayn ka doono oo mid kale halkan ka galo oo mid kale halkan ka galo waxa dhan waa isku dhex yaacayaan waddankan in xasilooni siyaasadeed laga helaho waxay ku xiran tahay inaan dastuurka u hoggaansanno haddaan dastuurka u hoggaansanno qorrax iyo dabayl iyo wax walba aan iskaga dulqaadanno waa waddan dagaal ka soo kabanaayo laakiin waxaan hubaal ku qabaa oon ku kalsoonahay inaanaan isnacayn wixii aan ku wada hadli lahayn meel ayay noo yaallaan arrinka labaad doorashooyinka madaxweynayaashu waa ka hadleen adduunyada sideedaba laba doorasho ka jirto waddan isku toosan oo wanaagsan oo taariikhdiisa la og yahay oo dadka musharaxiinta ah tabeelayaashooda iyo durbaanadooda ay soo qaadanayaan oo cid u baahan ay jirin oo dawladda kaliya la leeyahay xoogaa dawladnimada inaadan mataqaanaa aadan dadka tartamayaasha ku xusul gelin kaliya ee laga fiiriyo intaas doorasho noocaas waa jirtaa doorashada kale oo wadamada burburay iyo wadamada dhibaatooyinku ay ka jiraan ka dhaca hal shay saldhigu ah waxa saldhigu ah in lagu heshiiyo labaatankii sano la soo dhaafay wadamada nooceena oo ay doorashooyinku ka dhaceen oo ay ka mid tahay Afghanistan oo ay ka mid tahay Liberia oo ay ka mid tahay Sierra Leone oo ay ka mid tahay Congo oo ay ka mid tahay East Timor waxay doorashadoodu ku dhacday heshiiskaas oo ah inay 4 kooxood ka heshiiso marka la leeyahay macnaheedu maaha in hal qol la isugu keeno laakiin inay talada heshiis ka yihiin koow cidda taladu gacanta ugu jirto sababtoo ah waxay hayaan dhaqaalihii imkaaniyaadkii awooddii amnigii waa loo baahan yahay ha ahaadaan heer gobol ama ha ahaadaan heer ka koreeya dadka xukunka hawada uga jirto oo raba inay kuraastaas ayaguna markooda soo fuulaan waxba kama duwana
marka rifriigu labada kooxood kabtanadooda intuu isu keeno instructionska kala siiyo hadduu gooni qolo ula hadlo qolo kalena gooni ula hadlo dadkii shacabkii fiirsanayay way waswaasayaan waa in dadka xukunka raba iyo dadka xukunka haysta ay tafaahum leeyihiin waxa kaloo lagama maarmaana shacabkuna inuu raalli ka yahay oo wakaaladooda ha ahaadaano odayaasha dhaqanka ha ahaadaano culummada ha ahaadaano haweenka ha ahaadaano muxuu ahay mutaqafiinta iyo dadka mufakiriinta oo fikira waa inay waxa socda ayaguna raalli ka yihiin ugu dambeyn beesha caalamku waa inay legitimacy inay la dul joogto waaye maxaa waaye sababtu annagu Soomaaliya haddaan nahay waxaan xubin ka nahay ururo caalamiya United Nations ka kamida ururka carabta kamida kan islaamka kamida igada kamida dhammaan ururadaas waxay leeyihiin qodobo haddaan ku xadgudubno qabanaya sidaas daraadeed ma rabno inaan sameeyno doorasho ururadaas iyo beesha caalamku u arkayaan inaan falaaganahay oo aan taladeena gooni aan u dhiganay doorashadu inay waqtigeeda ku dhacdo waa muhiim sababtoo ah waa safety valve waa meeshii systemka laga neefinayay dhammaan madaxweynayaashu waa ka hadleen muhiimadda ay leedahay in doorashada waqtigeeda lagu qabto lagana heshiiyo wixii intaas ka soo hara waa farsamo marmarka qaarkoodna waxaan isku haysanaa wax in la isku haystaba aysan ahayn tusaale ahaan waa farsamo oo loo sameeyay inay farsamada doorashooyinka ay hayaan haddaad fuundi guri u dirsato oo aad tiraa gurigan ii dhis oo uu ku yiraahdo muxuu ahay waxaan ku dhisayaa 2 usbuuc $10,000 kugu baxaysa ikhtiyaarka inaad aqbasho iyo diidda adaa iska leh fuundi waxa kuugu male inuu kaala murmo cariishan ku dhisaa dhagaxan ku dhisaa shaqadaas asagu male guddigaas hawshiisii waa qabsaday yaan la dhibin xalimayare dhibka ha laga daayo talada annaga tashanayna maalinkii tala naga soo baxdo haddana ayagaan ku celinaynaa ama kii bedelan ku celinaynaa sideeda horta meel cidlaa in la iska qabsado oo la iska xigxigto ama la iska shakiyo waa gardarro qodobka ee ugu dambeeyo aan raba inaan ka hadlo waa gobolka Banaadir gobolka Banaadir waa caasimadii wadanka waa magaalo aan wada leenahay waa dawladnimadeennii waa saldhigeennii waa halka quruxdeenna iyo qaab darradeenna labaduba ay ka muuqdaan in dadka xamarne arrintaas waswaas badan nin aan saaxiibana hadda kor wuxuu yiri niyahow nin aad shirkad tihiin hadduu xisaabta ka leexleexdo warcaaw xisaabtii maxaa soo xarooda war biri nooga dhig hadduu xisaabta ka leexleexdo ninkaas qaablaawo waaye kala baxa in matalaada xamar iyo maqaamka xamar saacadda ugu dambaysa sidii excuse loogu sameeynayo biraa laga hadli saadan baa laga hadli kana laga hadli last minute kale iskugu yimaado waa nasiib darro magaalada xamar waa magaalada canshuurta ugu badan laga qaado dawladda federaalka iyo gobolka Banaadir iyo shabaab marka la isku daro waxa la qiyaasaa magaalada xamar in laga qaado $1 bilyan sanadkii waxa u dheer amni darro iyo muxuu ahay rafaad kale oo dawladnimada iyo caasimadnimada nafteeda ku soo gaara matalaadu waa xuquuq qofka muwaadinka uu leeyahay meeshuu doonaba ha joogo Soomaali dhammaanteen waxaa noo yaal inaan ka wada tashano maqaamka magaaladan sida aan ka yeelayno inaan ka wada tashano ummad meel degan oo badan
oo wax tabata taariikhda waa soo aragnay horaan u soo aragnay gobollada koonfureed iyo gobollada waqooyi markii la isku daraayay si niyad wanaaga ayay reer waqooyi intay dawladnimadii soo qaadeen ay noo keeneen waxa dhanba in iyaga lagu wareejiyey ahayd waxba lagama tixgelin maxamed ibraahim cigaal oo raganimadiisa kula jooga alla joogay bas dawladdii markay soo burburtay salaamu calaykum ayadoo la dhihin haddana waa laga tashtay dawladaa la dhisay waa ka warqabtiin wax alla wixii shir la qabanayay oo dib u heshiisiin la lahaa hal shiroo dartood u baaqday ma jiro horaa looga socday nimankaasu inay goostaan oo goosashadooda ay ku adkaystaan ma garay u leeyihiin mise gar uma leh gobolka banaadir waa caasimaddii waddankoo ma goosanayso laakiin waxaa ka suurtagala idii sheegi waxaa ka suurtagala inay dhahaan soomaaliyey canshuur noqotayaa iyo amri darro noqotayaa iyo culays noqotayaa 60 sanaan caasimadnimada soo haynee culayska ha nalaga qaado meel kale ha la geeyo waxaa ka suurtagala inay dawladnimada ka cagajiidaan oo canshuurta iyo mataqaanaa tacaamulka dawladda ka cagajiidaan oo shacbi madluumiina oo dhibaataysan dawladu kor fuushay inuu noqdaa iyaa ka suurtagala waxaa ka suurtagala in mataqaanaa weelku buuxsamo biyaha daadiyo arrinta banaadir waa ka xumahay in mar walba aakhiru saaca walada ciyaarta maxay dhahan injury time in mar walba injury time-ka la iska warsado arrintaas waxa laga bedelo caasimadaas waa wada leenahay aan wanaajisanno si aan raalli aan isaga nahanee maqaam aan ugu raadinno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu